bishan markay ay kala baranto habeenka niska ay tahay waxaa dhacda arrin weyn arrin cajiib ah xagga rabbi ka timi tabaaraka wa tacaala maxay tahay arrintaas wuxuu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeenka bisha shacbaan ay kala barantoy nis noqoto habeenkaas allah baa wuxuu daalacdaa addoommadiisa dhammaantood intuu abuurtay oo dhan buu daalacdaa markuu daalacda kadibna wuxuu u dembi dhaafaa dhammaantood dembigooda waa saamaxaa ilaa 2 ruux mooye ruux mushrik ah oo ilaahay iyo addoommadiisa ka dhaxaysiiyey wixii ilaahay gooni u lahaa xaqii alla gooni u lahaa oo cibaadadiisa ah oo tawxiidkiisa oo keliyeelidiisa ah ninkii wadaajin galay oo ilaahay iyo addoommadiisa ka dhaxaysiiyey kaasi ilaahay marna u dembi dhaafi maayo waa tan qur-aanku tilmaamayo inna allaha laa yakfiru an yushraka bih alla ma dhaafo in isaga iyo addoommadiisa wax la wadaajiyo oo laysugu daro ilaahay khalqigiisa waxa uu goonida ah inaad u leexiso waa dembi ilaahay laga galo ka ugu weyn wey adduunkana wuxuu keenayaa inaan dembigaaga haba yaraatee la saamixin aakharana wuxuu keenayaa inay jannadu xaaraan kaa tahay naarna aad ku waarayso saas daraaddeed mushrik ilaahay habeenkaa u dembi dhaafi maayo ka labaadeen loo dembi dhaafayni waxa weeyaan waa mushaaxin waa cuqdadlow waa xiqdile ruux xiqdi iyo nacayb qalbiga ugu haya ruux muslim ah asagana loo dhaafi maayo waa cajiib mushrika garanaya kan uurka ka jiran ee muslimiinta colaadda u haya ama xiqdiga u haya ama u xanaaqsan maxaa lagu maagay sababtu wax weeyaan u fiirso meesha la geeyey isagiiyo mushrigii baa laysgarab dhigay waa la fogeeyey waxaan meesha ka fahmaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dembiyada laga galo kuwa ugu waaweyn waxaa ka mida inuu qalbigaagu jiran yahay oo u jiran yahay dadka ilaahay addoommadiisa ee mu'miniinta ee muslimiinta ah waad nacab tahay xiqdi baad u haysaa xasad baa kugu jira nacayb baa kugu jira waa wixii ilaahay diiday tabaaraka wa tacaala meesha keliyana ma ahe munaasabaad fara badan xiqdiga iyo caloolxumada kugu jirteed muslimka u hayso waxay keenaysaa meelo fara badan inaad ilaahay naxariistiisa ka qaddo dembi dhaafkiisa ka qaddo halis u gasho rabbi cadaabkiisa iyo cuquubadiisa tabaaraka wa tacaala